السلام عليكم شيخ iyo daadiyaha barnaamijka waan idin salaamay waxaan qabaa laba su'aalood su'aasheedu koowaad waxa ay tahay waxaan lahaa muraad gaar ah markaas ayaan ilaahay u sharti galay hadii aan muraadkayga helo inaan u soomayo ilaah fadligiis waan ku guuleystay muraadkaygii waxaana dib u bilaabay soonkii kadib waxaan ogaaday in shardigaasi uu qalad ahaa soonkii waan joojiyay ee soonka ma ku bedelan karaa sadaqo maalin walba aan bixinayo intaan awoodo alxamdulilah dee anigu shardigaa soonka aad ku gashay inuu qaldanaa cidda kugu tiri garan maayo cidda wuu qaldanaa ku tiri baa ma qaldanayn aslan waxa aan wanaagsanayn shardigalka waaye ama soon ku gal ama salaad ku gal ama sadaqa ku gal laakiin mar haddaad gashay ilaahayna wixii ku siiyey waxaana wax cibaado ahaayoo soon iyo salaad iyo sadaqa iyo xaj iyo lamida uu ahaa sadaqada iyo soonka iyo salaadu isku mid weeye sidaa shardiga ugu gashay baa lagaa rabaa adiguna waad awoodaa sida aad tilmaantay sadaqa kuma bedelan kartid soonkii aad shardiga xiratay baa lagaa rabaa man nadara an yutica allaha falyutichu qofkii nadar iyo sharad ku gala wax ilaahay taacadiisa inuu ateecaya ha ateeco soonkuna taacadu ka mid yahay qof nabiga xilligiisii ku nadartay waxyaabo badan oo qayb taaca iyo qayb aan taaca ahayn intaba nabiga intii kalena wuxuu isku yiri iska daayay tan ha soomo soonku saad nadarka ugu gashay buu kugu waajibay mana khaldana in la soomo nadarka marka la fulinayo soon yahayna waajib weeye ciddii ku tiri nadarkii aad gashay soon ahaa waa khaldan yahay sadaqa u bedelana waxaan jirin bay kuu sheegtay marka hadda kadib nadar iyo sharadka inaad gashay iska daa waa laga fiican yahay haddiise sidan oo kale aad u gasho waa inaad fulisaa haddana nadarkii aad gashay sharadkii soonkii waa inaad samaysaa haddii soon isku xigxiga aad shardiday hadda saaad kala goysay kow baad ka soo bilaabi wabillahi towfiiq